Assalaamu calaykum. Haweeneydan aad u jeedaan waxay u dhalatay waddanka Turkiga. Waa haweeney aan hanti badan haysan oo baadiyaha ku nool. Dhaqaale fiicanna jeebkeeda ma soo galo. Shaqadeeduna waa guri joogto. Hase yeeshee waxay go'aansatay inay ka qayb qaadato barnaamijka uu ku dhawaaqay madaxweynaha waddanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ee ku aadanaa inay dadku wax alla iyo wixii ay hayaan ay soo ururiyaan si looga qayb qaato ka hortagga cudurka koronaha. Haweeneydan waxaa lagu magacaabaa Muqaddar Ogzoz, waxaana ay jeclaatay inaysan sinaba uga harin ololaha Turkigu isaga kaashanayo la dagaalanka cudurkan adduunka ku faafay. Inkastoo aysan xoolo badan haysan, haddana waxa ay warqad dheer oo dareen leh oo ay gacanteeda ku qortay ay u dirtay madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan, waxaana ay sii raacisay fargashi ama faraanti ay ugu talagashay in la iibiyo, qiimaha uu gooyana lagu biiriyo ololaha Turkigu wado, iyadoo faraantigaasina uu ahaa waxa kaliya ay awooday. Warqaddii ay haweeneydu qortay ayaa gaartay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan, oo isaguna telefoon ahaan u wacay haweeneydaasi si uu ugu mahadceliyo. Sheeko gaaban ayaa dhex martay Erdogan iyo islaantii faraantiga soo dhiibtay, taasoo rumaysan weysay in madaxweynaha Turkigu uu la soo xiriiray oo uu yahay qofka haatan la hadlaya. Laakiin Erdogan ayaa ku jawaabay, maxaad u rumaysan la'adahay in qofka kula hadlaya uu yahay Erdogan? Waayo faraantigaagii ayaad u soo dirtay madaxweynaha adigoo qoraalna soo raaciyey. Markaa miyaysan ahayn inaan kula soo xiriiro? Iyadoo ilmeynaysa ayaa waxay haweeneydii tiri, xaqiiqdii xoogaa waan qiirooday. Aad baad u mahadsan tahay madaxweyne. Looma baahna inaad ilmayso, waayo suurtagal ma ahan inaan ilowno wanaaggii aad samaysay, ayuu ku jawaabay madaxweyne Erdogan. Sheekada oo sii socota ayaa madaxweyne Erdogan waxa uu weydiinayaa haweeneydan waxa uu qabto seegeeda ama odaygeeda, waxaana ay u sheegaysaa inuu yahay imaam masjid, iyadoo kadibna Erdogan uu ka codsanayo in imaamkaasi masaajidka uu u soo duceeyo. Carruurtaadu waa imise jirro? ayuu weydiiyey Erdogan, waxaana ay tiri, waxaan leeyahay 2 carruur ah, midna jaamacaddii ayuu dhammeeyey, midna weli wuu wadaa. Midka koowaad wuxuu bartay siyaasadda, kan labaadna waxa uu bartay qaanuunka. Haweeneydan Turkiga ah ayaa waxay u sheegaysaa madaxweyne Erdogan inay hadafkeeda ugu weyn u yahay in wiilasheedu ay u adeegaan dalkooda iyo dadkooda sida Erdogan iyo kooxdiisu ay ugu adeegayaan dalka oo kale. Erdogan ayaa ugu jawaabaya, aamiin insha Allah, isagoo mar kale haweeneyda ka codsanaya in maadaama xaajigeedu uu masaajidka imaamka yahay uu ducada soo laba jibaaro. Niye inanmıyorsun ya? Cumhurbaşkanına yüzük gönderiyorsun, mektup gönderiyorsun. Siz de bunun karşılığında telefonla ben sizi aramayayım mı? Hiç ağlamaya gerek yok. Ama sizin bu kadir şinaslığınızı bizim de unutmamız mümkün değil. Her şeyden önce Kahramanmaraş'ı biliriz. Dedeleri biliriz. Allah sizden de razı olsun. Beyefendi ne iş yapıyor? Öyle mi? Ha. Allah razı olsun. Allah gayretini artırsın inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. İşte biz de böyle şimdi karantinada günlerimizi dolduruyoruz. Telefonlarla yurt içinde, yurt dışında bütün çalışmalarımızı yine devam ettiriyoruz. Amin. Hep beraber. Hep beraber inşallah. Hep beraber. Çocuklar kaç yaşında? He. Maşallah. Ne okuyor? Maşallah. Amin, amin, amin. Amin, amin inşallah. Beyefendiye çok selam söyle. İmam olduğuna göre bize çok dua etsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Dua, dua, dua. Erdogan waxa uu caan ku yahay inuu ka jawaabo fariimaha ay dadkiisu soo gaarsiiyaan isagoo khadka taleefanka ka waca muwaadinkii fariin soo gaarsiiya, taasoo muujinaysa inuu yahay
nin dabacsan oo dadkiisu u siman yihiin oo aan dadka danyarta ah xafiiska madaxtooyada ka xiran ama aan ka jawaabin dhambaalada ay u soo diraan. Waxaan xusuustaa xilli sii horreysay oo aan daawaday muuqaal video ahaa oo uu madaxweyne Erdogan taleefanka ka wacayo gabar yar oo naafo ah isla markaana aan hadli karin oo sawirka madaxweynaha oo ay gacanteeda ku soo sawirtay u soo dirtay xafiiska madaxweynaha. waxaana kadib Erdogan uu uga mahad celinayaa inantaa yar sawirkaasi quruxda badan ee ay u soo dirtay, iyadoo arrintaasina ay aad ugu farxeen gabadhii yareed iyo hooyadeed. daruuraha